Jamaal Jaamac Xamuud oo ah ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay ka xisbi ahaan iyo sida u arkaan lambarka gaadiidka cusub ee la bedelay iyo cashuurtan lagu bedelanayo inagoo aynu ku jirno sixir barar dhaqaale burbur aan la daalaa dhacayno in ninkii gaarigiisii cashuurtay ee maalintii dhawto lacagta laga qaaday haddana la yiraahdo maanta 60 bix de wax qofku kari karo maaha shacabku ma kari karaan in loo tiro shacabka oo shacabka loo tiro weeye waa ku raacsanahay in la bedelo lambarada oo la yiraahdo waxa la dhexgeliyo si aanu lambarku maalin walba gaariga marka aanu u qiimo beelin oo ku raacsanahay laakiin ninkii cashuurtay shalay cashuurtay in la yiraahdo 600 bix ma qaadi karo wasiirku soo qoray maaliyadda inay soo marto sharciga la soo mariyo baarlamaanku soo maray way ahayd shacabka de waxa ka wakiila baarlamaanku inay isla eegaan oo ka fadhiistaan oo isla soo eegaan bay ahayd laakiin laynu ku soo dhex tiro la yiraahdo gaarigii shalay bixiyay lacagta bixiyay maantana ha bixiyo oo 6 bilood gudahooda ku bixiyo oo 600 ha bixiyo arrintaasi waa arrin aad la yaab u leh oo aan loo turayn dadka oo shacabka loo turayn oo shacabka loo turaa mar kale waxa uu ka hadlay mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa caasimadda Hargeysa kaasoo wax ka qoray booliiska Somaliland مثلا فورا shalay hadlay boolisku la hadlay haddaan la is dhaliilin oo wax la isu sheegin wax ma hagaagaan in la is dhaliilo oo wax la isu sheego oo wax la toosiyo way boolisku waa run waa ku seexanaa waa booliskeenii laakiin booliskii wax yaqiinay waa gaboobeen rag way noqdeen laakiin rag hadda mar inay wax ka bartaan oo iyagu wax baraan oo wax la baro oo iyagu soo saaraan weey laakiin marka la yiraahdo waxba xun booliska waxba ka xun waxba inaga xun in la yiraahdo maxkamad baa lagu geynayaa ama waxa lagu geynayaa xiraalinta lagu geynayaa demaha waa in daliishii la sheegay la toosiyo wax lagu qaato oo aan dadka loo caga jugleen caga jugleedu ma fiicna oo waxaanu de waxaas laga soo dagaalamay in la isu caga jugleeyo waa in arrinta lagu eegaa marka wax la isu sheegaa ugu dambeyntiina waxa uu ugu baaqay madaxweynaha Somaliland inuu dhageysto tabashooyinka dadka madaxweyne haddaan waxaas aan u dul qaadan karin madaxweyne ma soo doonateen oo inaad waxa u dul qaadataa wax ka qabataa wixii la tabanayo dad umada ka tabanaysa waad ka hadashaa oo dadka la hadashaa laakiin hadda tiraado waa isxiraya oo cid la hadli maayo oo cidna loo joojin maayo saynu sii soconayno garanayno Soomaaliya say u soconayso garanayno Ali Fahad telefishinka Saab magaalada Hargeysa